ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo caawa ay soo saareen ciidamada waddanka Iran gaar ahaan kuwa qaabilsan badda ciidanka badda ayaa war weyn soo saaray saad ogtihiin xalay waa la isku dhuftay galabtay waa la isku dhuftay hadda xaalku halkuu maraya mar saddexaad ma la isku celinaya caawa jugta bay iska gelinayaan Mareykanka iyo Iran haddaba ciidanka Iran marka caawa muxuu sheegay warkii ugu dambeeyay goordhow telefishinka Al Jazeera ayaa daabacay Al Jazeera waxay leedahay wakaalada wararka ee Tasniim ee laga leeyahay waddanka Iran ayaa waxay sheegtay in militariga Iran gaar ahaan kuwa badda Iran ay markaa sheegeen in ay iska ka hortageen oo ay jawaab siiyeen waxa ay ku tilmaameen argagixisada Mareykanka wakaalada wararka ee Tasniim waxay soo kale soo xigatay mas'uuliyiinta hogaamisa ciidamada badda waddanka Iran waxay sheegeen in ay markaa rasaas culus ugu jawaabeen Mareykanka markii argagixisada ay ku argagixisada Mareykanka markii ay isku dayeen inay dhibaateeyaan maraakiibta Iran haddaba waxay Iran uga digaysaa in ay isku dayaan Mareykanka maraakiibtiisa inay dhibaateeyaan maraakiibta Iran oo ay wax u dhimaan ama ay isku dayaan inay soo maraan meelaha ay joogaan oo u xiran ciidanka Iran waxayna sheegeen haddii ay arintaa isku dayaan oo ay inay soo galaan deegaanadaas isku dayaan inay la kulmi doonaan waxa ay ku tilmaameen jawaab aan ka soo waabasho lahayn way wala isku dhaaranayaa meesha ciidanka Iran waliba qaybtiisa al-bahriya leeyahay waa qaybta badda ciidamada badda waa nimankii dagaalamay xalay ilaa iyo galabta ayaga ciidanka badda Mareykanka ee maraakiibta dul saaran waa ishayaan marka waxa la yaab kale marka warbixintan caawa luqadii waa la adkay waxa la yiri al-irhab al-ameriki al-irhab Mareykan asaa lagu yaqaanay ninkuu fahmi waayo wuxuu dhihi jiray waa argagixis laakiin balaaya ka dhacday hadda qolo kale oo asaga ka imtixaansana haysata markaas waxay leeyihiin argagixisadii Mareykanka baata midda asaarnay waa la yaabay argagixisa lagu dhajiyay waa lagu tiimbaray odaga markiisa mar kale waxa la yiri hadii markaba leenahay asaas u fiiris wixii maanta dhacay wax ka culus ay ma doona midda kale hadaa isku daydo inaad soo marto meelahan Hormuz iyo ereyadeeda iyo hadaan kugu aragnaa iska jir marka waa war u muuqda digniin culus oo kama dambaysa oo ciidanka Iran ay soo saareen marka sheekadanu waxa waaye waa sheeko cajiib waaye waxa leeyahay dadkii dagaalkan qarka loo saaray dagaalkan inuu dhaco dagaal weyn isku bedela laga cabsanaya marka kollay waa la isku hanjabayaa waxba la isku ridayaa waa la soconaynaa wixii soo kordha arkaynaa haddaba walaacan dadka qaba waxaa ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres sideedaba qaramada midoobay iyo hadda maqasho Afrikaankani waxaan ka adeegay meesha waxay ka gooyaan male golaha ammaanka iyo waxa waaweynka ishaya dawladii waaweynaa ishaya Iran hadii dacwad laga geeyo golaha ammaanka China iyo Russia u fadhiya hadii Israa'iil dacwad laga keeno say wax nagta ugu hayso ayadana Mareykanka u fadhiya marka meeshan dadkii oo waxa adduunka cunaqabatayna saarnay dhahay meesha kuwii aba isaaya had marka meeshan qaramada midoobay maxay ka gashaa waxa ka gashaa labaad haddaba marka arintu soo warkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray Guterres oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda isa soo taraysa ee ka jirta Hormuz afayeen u hadlay Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in xogayuhu aad uga walaacsan yahay xaaladda ka taagan Hormuz wuxuuna ku baaqayaa in laga fogaado
arrimahan dhibaatada keenaya dadaalna lagu bixiyo qaybta diblomaasiyadda. wuxuu leeyahay waa walaacsanahay hadaa walaacsantaa anaga hortaa walaacsaneyn warigaa kaa maqlaa dadkaa la mid noqotaa qaramada midoobay markay meelahan baashu soo gaarto xaaladda waa dhumaysaa. laakiin dalal afrikaana iyo kuwa eeshiyaana iyo way iska harowsanayaan mafahm meelahaasay iska ceerceersanayaan. laakiin waxa la bartay muddooyinkan waxa waaye nin kasta wuxuu rabo u samaynayaa. qaramada midoobay wax la yidhaahdo maba jiraanba. golaha ammaanka intaa ogeydeen waan idin xusuusinayaa waxyar. golaha ammaanka intii gaza la duqaynayay meeqa go-aan uu soo saaray meeqa go-aan uu soo saaray golaha ammaanka. ha sheegin wax ka jira male. ma hirgaleen may wax ma ka shaqaysanaa waxay tiri waxaan wax ka jira male. waa la isku dayayaa golaha ammaanka limaana ma jirto. maraykan veto waxaase ka laabta. hadda iiraan marka sidoo kale waa la soo dacweeyay hurmusa xirtay maxaa sameeynaa meesha la keenay shiinaasi iyo ruush waxay leeyahay bawdiin waxaan ma shaqeynaa isku soo lugoynina meesha. waa la yaab marka adduunkii oo dhan asaas iska laabtay. haddaba dhanka kale turkiga maanta waxay la hadleen iiraan marka turkigu hal arrin ay kala hadleen alle. iiraan waxay turkigu weydiisanayaan waxay leeyihiin heshiiskan dadejiya oo qaata. iiraan waxay taagan tahay waa ka fakaraynaa. waxay rabaan Trump iyo kooxdiisa inay dhulka ku jiidaan. goorma bilaabeen 3-4 bari ka hore Trump iyo kooxdiisa waxay bilaabeen diyaaranahay ee Iiraan laga sugayaa. Iiraan ma soo dhamaystirto. Iiraan hayaal dhaha waxay leeyihiin daraasada ku haynaa. xoogaa baaritaan ku haynaa. maalinka labaad ilaa maanta ugu dambeysay oo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka muxuu lahaa maanta inay soo gudbiyaan laga rabaa Iiraan. may soo gudbiyaan. iiraan waxa leedahay anaga waa daayna darabna maxaa qaadi kartiin adig soo socda. marka hadda turkiga waxaa loo maleynayaa macalinka weyn inuu halkaa ka soo wareegay maadaama ay isku fiican yihiin turkiga iyo iiraan in marka macalinka weyn uu yiri turkiyo nimanka dee la hadal shaan xalba ah. haddaba marka aan tusoo warcaawa laga qoro sheekadan ayaa waxaa leeyahay xiriir dhinaca telefoonka ayaa dhex maray wasiirada arrimaha dibadda wadamada turkiga iyo iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga war ay goordhow soo saartay waxay sheegtay wasiirka dalkaasi Hakan Fidan inuu telefoonka kula xiriiray dhigiisa wadanka Iiraan Abbas Araghchi waxayna ka wada hadleen arinta wada hadallada socda iyo Iiraan iyo Mareykanka waxa u dhaxeeya sidii arinka loo dedejin lahaa oo xal looga gaari lahaa ayaa arintaas ayaa laga gaarawle. marka turkigu marka waxay dad badan leeyihiin macalinka weyn markay xaaladaha qaar ay jiq ku noqdaan Erdogan la hadlaa wuxuu yiraahdaa warbaashan iga kala furfur. marka hadda Erdogan ma furfuri karaa meesha niman ismahadiyay waaye. Iiraaniyiintii waxayba arkeen Mareykanka wixii dhan inay boota ahaayeen. waxayba taagayeen Mareykanka dawladda adduunka ugu weyn ahay isbaarada aan dhigateen qaadi waay maxmed tabarulaaya inuu nuclear dad ku dhufto maahana wax kale u haray ma jiraan. diyaaradii ugu casrisaneed maraakiibtii diyaaradaha qaadaysa kuwii ugu casrisanaa wax kasta waa keenay dhikaan meesh wax u haray maanta ma jiraan aan ugu leeyahay aan nuclear ahayn. sababtoo ah diyaaradaha ugu weyn ee bambooyinka rada B2 iyo B1 iyo waa la geeyay. markabka ugu weyn ee diyaaradaha xambaara ee adduunka oo dhan waa la geeyay Gerald Ford Allah. kuwii ku soo xigay waa la geeyay 3 markaba isla tagtay bash. maxaa laga qaaday wax laga cunay male. marka nimanka waaba ismahdiyeen waxay leeyihiin waa ninkii professorkii Mareykanka waa tuulaha alquwa raabica waa Iiraan macnaa awoodii afraad ee soo gashay adduunka nuclear iyo waxaan iyo marka laga tago 4 waa yiraahdeen 3 wadana ka horeysa bas yaa ka horeeya Mareykan iyo Ruush iyo Chinese. alquwa arraabica yiraahdaa awoodda afraad waa nin professor oo Mareykan qoray warbixintaas. sheekada kale xiisaha leh barnaamijka ku jirta waxaa ka mid ah madaxweynaha Lubnaan wuxuu baryayaa wadan wuxuu leeyahay Israa'iil nagala hadla. wadanka uu baryaayana wadan wax ka galaba sheekadan ma tabar uu haayo xataa bijirto
محولي كندا ودك كندا ما مغشين ساحات دقالك ميلان مكواركتي كندا مارتي كندا أيها ترى مركو يمد وهنجبي جري محولها هذه كنروا إذا قالنا بركاسي عبادي جرين أو قيرينيين أو إلهاين إنجليز كبقر كحلها الله نبكن مع سيرو قادنا ترى بكجرين نبن بركنو عاسا نكم معين بدي إني وحقو تران تاسا يابل ليل عربتي عاو سيده توغو بادسنayaan ninka madaxweynaha ka Lubnaan hadaba marka aad tusawir bixinta waxa qortay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay madaxweynaha Lubnaan ninka la yiraahdo Michel Aoun waxa uu ka dalbaday Canada inay cadaadis saarto Israa'iil si ay marka Canadiyaanku uga hadlaan Israa'iil si ay u joojiso una aqbasho xabad joojintii ay saxiixday inay meel ka wado Israa'iil iyo inay beegsato dadka rayidka inay joojiso Canada ninka wax weydiisana nin asaga allo sahal waakaas marka niman ayaga waa la idin qabsana Trump leeyahay hada qabsanin kuway ninka Israa'iil cadaadis saara haye يا حبت شوشتي هيرجلس ضد كرهيت كده جدي ليس هنا يتم ورا وحاس وقتها داود البرنامج شغيبته نقود بيسوح إنه كسوق قادنا ورر جورد وصور عي أو شيء إن إسرائيل ورر عصب أي عاوة كقاضي لبنان مقالة لراقوني درنا أي عيدا كذو قالين كوفورت لبنان لكن كلا حسب الله يقولون وحي شيئين إن ورر كقاضين كوبا أي شوغان صلقيا عيدا كإسرائيل ماشا سعيد جوك تاك صعوتا لكن كلا جسنا وحال شيئا إن أي إسرائيل دقيسي مال أي ضد كريت كاكوسقنايين iyadoo isticmaalaysa diyaarad drone wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa barnaamijkeena inta aan markale kulmayno asxaabay